dhalinyarada Soomaaliya calanka dhowraysa inuu dalkoodu dhismiyo dhaqanka doonaysa inkastoo dhalaaniya gabow ciidan lagu dhato ondeliga diidnayo xididka loo dhaabay dhaqdhaqaaqa meelaan casrigu wali ku dheerayne burburkii xukuumaddii Soomaaliya ee 1991 kadib ayaa dalka waxaa ka bilowday shirkado yaryar oo gaar loo leeyahay oo xaafadaha magaalada Muqdisho korontada siiya muddo sanooyin badan ah ayaa shirkadahaasi wadeen shaqadaasi koronto gelinta Muqdisho iyagoo la kulmi jiray dhibaatooyin kala duwan oo ay dhici jirtay mararka qaar in shaqaalahooda la dilo marmarna laga jaro fiilooyinka korontada waxaa intaasi u dheeraa shirkadaha oo awood aan u lahayn in ay bixiyaan koronto tayaysan haddaba shirkadda korontada ee Beko oo baahidaasi ka jawaabaysa ayaa waxaa la asaasay bishii May ee sanadkii 2014 iyadoo ay ku midoobeen inta badan shirkadaha korontada siin jiray xaafadaha magaalada Muqdisho asaaska shirkadda Beko kadib ayaa durbaba waxa ay shirkadda Beko ku dhaqaaqday dadaalo aan kala go' lahayn oo ay ku doonaysay in ay magaalada Muqdisho mugdiga uga saarto isla markaasna la helo koronto raqiis ah oo tayo leh maal iyo maskax midoobay kadib Beko waxa ay malaayiin dollar ku bixisay sidii ay u heli lahayd qalab casri ah oo koronto tayo leh dhalin kara sida aad u jeedaan waxa ay dibadda ka soo iibsatay shirkadda Beko mashiino casri ah oo isugu jira kuwa qorraxda korontada ka dhaliya ee solarka loo yaqaano kuwa dabaysha ku shaqeeya iyo kuwa gaaska iyo shidaalka ku shaqeeya dadaaladaasi kadib waxa ay Beko sanad kadib ku guuleysatay in inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ay ka qabtirto koronto tayaysan iyadoo isla markaasna qiimihii korontada dhintay 50% haatan sicirka korontada waa 60 senti halkii kilowatt halka uu horeyna uga ahaa $1.26 higsiga shirkadda Beko ayaa ah in dalka Soomaaliya oo dhan ay gaarsiiso koronto raqiis ah oo tayaysan balse haatan waxa ay xoogga saaraysaa shirkadda Beko sidii Muqdisho oo dhan ay u heli lahayd koronto ku filan bishii May 5 sanadkii 2014 ayaa la qabtay xaflad weyn oo looga dhawaaqay inay midoobeen shirkadahaasi lana bixeen Beko saddex shirkadood oo waaweyn oo isu tagay ahaayeen oo shirkad waliba ay ka kooban tahay ugu yaraan 25 shirkadood yar yar ah oo markii hore urursadeen hadda waxaan sameynay dhul ka baxsan magaalada Muqdisho Dar es Salaam waxaan ka sameynay dhul ballaaran aan ka iibsanay waxaan ka sameynay dhismo waxaan ka sameynay solar project inaan solar project koronto ka dhalino Jazeera waxaan ka iibsanay dhul ballaaran waxaan rabnaa inaan ka sameyno power plant oo dhigno HA4 generator waaweyn oo ku shaqeeya walida culus ama shidaalka culus oo Muqdisho dib u soo gelino cables inta badan dalalka adduunka horey u maray ayaa korontadooda waxa ku shirkoobay dawladda iyo shirkado gaar loo leeyahay waayo dhaqaalaha iyo aqoonta koronto tayo leh ay u baahan tahay shirkado gaar ah ama kuwa ay dawladdi leedahay kali midna uguma guuleysan karo haddaba ma laga yaabaa Soomaaliya xilli dhow in ay koronto la'aanta ka baxdo oo magaalooyinka iyo degmooyinka iyo tuulooyinkuba ay helaan koronto ku filan sida ay u heleen telefoon meel kasta looga hadli karo dawladda waxaan uga baahanahay shirkaddan wadaniga inay dhiirigeliso ee dalka iyadu iskala doonaysana dalkeeda inay ka samayso horumar dawladda waxaan ka doonaynaa inaan shirkado shisheeye nagoo dalka joogno shaqeynayna inaan shirkado shisheeye maalgashi inaan ka mid ahayn aan ka sameyn dalka
anagu markaan Soomaalida oo dhan ay shirkoobaan ay wax sameystaan wala sameyn kana mar kale in shirkado shisheeye ay la maalgashadaan dalka dadka Soomaalida laakiin shirkad wadani ah oo Soomaaliya oo shaqeynaysa in shirkad kale oo shisheeye la keeno oo dalka ay investment ku sameyso gooni ah oo dadkii Soomaaliyeed luku lahayn waxay noqonaysaa caqabad magaalada Muqdisho waxaan ku leenahay 34 station oo koronto laga bixiyay dhamaantoodna waxa yaala matooro waaweyn matoorada waaweyn way gooxayaan qiiqna way deynayaan ujeedada beeka waxay tahay 34 meelood ee generator laga isticmaalo laga sii daayo in la damiyo laguna soo koobo hal saldhig si loo yareeyo gooxa dadweynaha dhibaya iyo qiiqa environmentiga saameynta ku leh sawdkan aqaana Soomaali weeyo sinjiga iga dhalashadu Soomaali weeyo samayskayga aadane Soomaali weeyo ruuxa salaama Soomaali weeyo سد وحان لقوتا سومالي ويو صاحب وحان نهي سومالي ويو عكتا ميشان سارا سومالي ويو قوغشان كوزيحدا سومالي ويو تشيركان ميشان ليسارا سومالي ويو موغولي صفاتكيو كلا سوعي دادا